deegaanka Laastoomare oo kamid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Huluul oo ka dilaacay xanuunka shubanka waxa halkaasi ugu geeriyooday xanuunkaasi hal qof oo indhahayagu qabteen meydkiisa oo loo sii wada qubuuraha Allah u naxariiste geesta kale waxa dhulka u jiifa in ka badan oo xanuunkani haleelay xildhibaan Cabdi Muuse Warsame oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka oo ka hor intaan deegaankan iman nagu wargeliyay in xanuunkani deegaankaasi ka jiro ayaa noo sheegay waxaan u sheegnaa wasaaradda caafimaadka iyo bahda saxaafadaba iyo dawladda Soomaaliland jiidan la yiraahdo wareeg waxa ka dilaacay xanuunka la yiraahdo shubanka kaas oo xumad iyo dhiig dadka madaxaasa kala jeexnaya kadibna dhiig uu sii deynaya qofku kadibna in yarbayba kaga hiifyoorana wuxuuna u badan yahay dadka waaweyn buu badan yahay hadda waxa jiifa intaan soo aragnay kulay tuulada Laastoomare waxa jiifa ilaa 7 qof Huluul lafteeda 4-5 qof baa lagu sheegayay dhinaca kale tiim ka socda hay'adda Hiil oo intii abaartu deegaanadan ay ka jirtay ku hawlanaata kuleynta dhallaanka tamarta daran ee ay abaartu saameysay ayaa si kadis ula kulmay xanuunkan deegaankan ka dilaacay waxayna hawlwadeenada hay'adda Hiil noo sheegeen sida ay hawshaasi u qabteen goor ay ka timaado ma garanaysaa ma qiyaasi kartaa yaa saar gaariga haye waa iska soconay adoo wixii oo socod ku dhaafin baad arkaysaa in kastaan wuxuu dayga joogsan caloosh laakiin ma joogsan casraadi ka waran asalay ma yiriyo joog iyo fadhitoon ma lahayn team nutrition-ka oo gobolka baan nahayn oo ka socda Hiil ka bacdi waxaan la kulannay dad xanuunsanaya oo ay hayaan xanuunkan shubanka qaar way dhinteen markaan ribood gareynay adigu intaan u tagnay istul taagnay 7 ayay noqdeen mid ugu dhintay waa kalaasiyo 6 kalena way jiifaan waxa aad aan u dhaliilayna gobolka maamulkiisa oo aan wax gurmada hadal mooyaane nagu soo kordhin ka bacdina aan maxay hayto imanna saaka salaadii ay shaqadoodii joojiyeen waxay bilaabeen inay markiiba faleebooyinkii iyo maxaan ku dhahday first aid-kii ay sameeyaan caruuraha yaryar ee nutrition-ka ee laga shaqeynayo ayaanu ka garanay in shuban jiro waayo hooyo kasta noo timaada shuban bay ka cabanaysay si degdeg ah loo soo gaaro waayo waxa hadii calaamada la arko haddaan si degdeg loo qaban wuu wada camimaya deegaanka oo dhan buu wada saameynaya hadhowtuna lama qaban karayo wana saaka markii aanu shaqadeena aroodnimo waajibaadka gudaheena baanu joojinay shaqadeena waxaanu galay emergency anagoo amalka neelka casashadana waxaanu tagnay dhamaan la kulanay dad aad u fara badan leh ilaahay u naxariistay maxamed ciise wuxuu u geeriyooday shuban biyood wata dhiig halka 7 qof oo 6 qof oo kalena ay wali ay shubankii la sii tacaalay waxaanu gaarsiinay wixii aan markaan ugu qaban karanay in kaloon badan miyigan iyo aagna oo laga soo sheegaya marka xaaladdu MTS-ku intay ka furgareyn karaysay hadda waxaan ugu daranba waxaan dawooyin haynay iyo faloobooyin iyo alaab dawooyinkii ayaa naga dhamaaday hargabna waa jira shubanna waa jira biyo xumaa jirta iyo in meesha loo sameeyo MCH meeshu ma laha MCH ma laha goob caafimaad marka sidaa daraadeed waxaan ka codsanayaa gobolka iyo wasaaradda caafimaadka in iyadana loo sameeyo ama healthy boss ama MCH hadba wixii awood ay sababta dhalisay xanuunka deegaanadan ka dilaacay ayaa loo malaynayaa inay tahay kadib hogol roob ah oo dhawaan ka da'day deegaankaasi oo biyihii galay meelaha biyo qabatinka ahi ay la falgaleen xoolihii abaarta u baktiyay isla markaasina uu xanuunkani ka dilaacay biyahaasi ma jirto wax gargaar degdeg caafimaad ah oo ay wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag ay ilaa haatan deegaanadaasi gaarsiisay Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid Bulsha TV Laastoomare